wariye cabdimaalik sheekh muuse coldoon guddoomiyaha ololaha khayriga ah ee kaalmee kuwan oo magaalada burco ka hadlay ayaa sheegay in somalilan ay ka baxday qodob lagu heshiiyey 30 sano ka hor oo ahaa in lagu dhaqmo oo lagu maamulo somalilan shareecada islaamka waxaanu xusay sababaha kalifay in aan lagu dhaqmin diinta islaamka waa siduu hadalkiisa u dhigay waxaanu xoojiyey hadal uu hore burco uga jeediyey mujaahid axmed mire maxamed ugu horeyn allah baa mahad leh الله با قرآن كي سكوشاغي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما دينتا إسلامكو ومنهج أما تشدن ولاد أو دميستران وأدون كينا إيو آخرين با كوهاقاقيسو horumarka dhabta ahi waa kitaabka alle oo la sareysiiyo iyo wixii ka sokeeya kitaabkaas oo la hooseysiiyo soddonkii sanadood ee la soo dhaafay waxa aynu ku jirnay dayow iyo karbaash aynu gacmaheena ku kasbanay maxaa sababay waxa aynu ka baxnay ballantii aynu ilaahay la galay sanadkii 1991 ee ahayd in aynu ku dhaqanno shareecada islaamka waxay hor yaala ama gacanta ku hayaa qodobadii ka soo baxay shirkii aayaka talinta waqooyi oo ahaa 6 qodob oo uu ku saxeexan yahay xoghayihii shirka aadan axmed diiriye aadan baradho qodobka labaad waxa weeye in lagu dhaqmo shareecada islaamka waxaana sidoo kale ku saxeexan 17 xubnood oo kamid ah madax dhaqameedkii culimadii iyo waxgaradkii bulshooyinkii matalayay waqooyi ayaa halka ku saxeexan ballan ayaynu ilaahay la galay ballantiina waa aynu ka baxnay haddaba waxa isweydiin leh maxaa muujinaya ama cadeynaya in aynu baal marnay ku dhaqanka shareecada islaamka waxa aan soo qaadanayaa laba arrimood oo waan soo koobayaa labada arrimoodii waxay la xiriiraan maxkamadaha iyo golaha baarlamaanka haddaan ku horeeyo maxkamadaheena waxa aynu dhigaynay kitaab aanu ilaahay soo dejin oo dadka lagu xukumo oo loo yaqaano penal code ama xeerka ciqaabta kitaabkaas ama dhiganahaas oo lagu xalaaleynayo gudihiisa waxaanu ilaahay xalaaleyn laguna xaaraantinimeeyo waxaanu ilaahay xaaraantinimeeyo shuruuc gaar ah oo ilaahay ka sokaysa weeye wax aynu shuqul ku leenahayna maaha waa wax la soo minguuriyay laga soo dhoofiyay Talyaani Ingiriis iyo Hindi iyo dadyow kale oo aan inala diinahayn waxay dejisteen weeye marka waa qaanuun wadciya ama qaanuun ay dad sameysteen weeyaan inaguna waxaynu ku ballanay in aynu kitaabka alle ka dhigano manhaj nololeed oo dhameystiran ama maxkamadaha noqoto ama meel kale ha noqoto marka waa arrimaha aynu ku baalmarnay ku dhaqanka shareecada islaamka haddii aad xabsiyada booqataan oo aan anigu ka soo baxay oo aan soo arkay maxaabiis badan waxa ay ku xukuman yihiin dadkaasi qodobo ku yaala kitaabka xeerka ciqaabta guud qof kasta waxa uu ku xukuman yahay qodob hebel qodobo iyo ciqaab aanu ilaahay dejin ayay ku xukuman yihiin ka ugu dhowi waa ka qodob ku xukuman oo la oranayo aayad baa la akhriyay qodob hebel oo la akhriyay aayad hebel waxay haydna in dadka wixii ilaahay jideeyay lagu xukumo wax ka sokeeyana yani la tuurayo laba waxa aynu samaysanay gole aynu u bixinay golaha sharci dejinta oo marar badan doorasho geliyay amarka ilaahay ee aan doorashada iyo xulashada marnaba iyo sinaba u galay sida ansixinta xeerkii kufsiga ee dhawaa iyo isku daygii ansixinta ribada iyo arrimo kale oo kuwa la mid ah waxa jiray xeer dood u dhaliyay waa dadka waxa dabcan waxa dadka u soo ifbaxaya ay kamid tahay wax badanna waa jiraan
xeerkaasi waxa weeye waxa dabada ka riixaya dadyow iyo hay-ado yani u danaynaya waxaan danteena ahayn iyo diinteena marka xeerka kufsigu waxa uu baalmarsanaa shariicada islaamka waxa uu si cad uga hor imanaya diinteena islaamka golahaasana lagu ansixiyay heer waxa ansixiyay in la mariyo golayaasha oo madaxweynuhuna ansixiyo inkastoo la sheegay in dib wax looga bedelay laakiin wuxuu ahaa gaf ayuu ahaa waxaanu ilaahay banayn in la baneeyo marka wuxuu ka dhacay golahu ka dhacay golahaas yani sharci dejinta aynu u bixinay ilaahay baa sharci dejiye waxay ummadani ku dhaqmayso yani nolosheeda xaaraan iyo xalaan allahumma u dejin kare arrinkaas ayaa la sameeyay إنكم مبلهين بحرشة يدورشة إلهي قرآن كيسا وحكو شاقي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم هذا سوحة ما ميسا إن أين وحل شاء اللهين هدي الله وحقويو الله رسول كيسو هدي وحقويان إنكم وحد ورشاء يحل الشاء يدوخكم ملهين شرعي إلهي mid xulasho galaya maaha mid dood galaya maaha mid gacanta galaya maaha mid codayn gali kara maaha ee waa mid ah in sidiisa loo fuliyo shariicada islaamka in aynan dhaqan gelin waxa dhinaciisa isaguna ka makhraati kacay Axmed Mire Maxamed oo kamid ahaa taliyayaashii dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed ameesana oo burco gudaheeda ka sheegay dhamaadkii bishii hore waa shanaadii hore in aynu dab saarnayn 30 sanadood ee la soo dhaafay kadib markii aynu ka tagnay kitaabkii Ilaahay nuxurka hadalkiisu saas ayuu ahaa waa Axmed Mire waa ragga ugu cadcad ee ka nool ururkii dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed ee SNM ugu dambeyn sidee baynu uga bixi karnaa guud ahaan dhibaatooyinka in haysta sidee baynu uga bixi karnaa si aynu uga baxno dayowga iyo karbaashka aynu ku jirno waxa aan soo jeedinayaa laba arrimood oo ka koobaadi uu yahay waa in aynu si buuxda ugu dhaqanno shariicada islaamka innaga oo fulinayna amarka Ilaahay si aynu u helo liibaanta aakhiro iyo ta'adduun inaynu shariicada islaamka ku dhaqanaa waa amar Ilaahay ama aynu ku heshiino ama aynan ku heshiinba laakiin waxa weeye waa amar ina dul saaran oo ay tahay inaynu fulino sareynta sharciga dhabta ah waxa weeye waa ka alle oo la sareysiyo oo la fuliyo labo waa inaynu tuurno nidaam kasta iyo mabda kasta oo ka soo horjeeda diinteena islaamka Mahad Ali Goodir Ariel TV Burco